إن شاء الله waxaanu wadnaa muddadan barnaamijka wacyigelinta bulshada gaadiidleyda sababta loo wacyigelinayana waxa weeye in dadkii lagu dhiirigeliyo ama macnaheedu waxa weeyaan la tuso ama loo sheego in nidaamku iyo sharcigu uu shaqeynayo sidii uu shaqeynayay si kasi laba jibaaran uu shaqeynayo gaadiidleyda bulshada gaadiidleyda noocyadeeda kala duwan waxaan wacyigelinta aanu wadno ka qayb ah magaalooyinka dhexdooda gaadiidku marka ay isticmaalayaan magaalooyinka dhexdooda xawaaraha lagu soconayo in la ilaaliyo baakinka la dhiganayo in la ilaaliyo meelaha baabuurtu ay ku kala wareegayaan in la ilaaliyo meel aan gaariga loogu talagelin inuu ku kala wareego hadduu ku kala wareego waxa ka imaanaya khasaare shil leh jaam leh dadkiioo isku xanimo leh sidoo kale magaalooyinka dhexdooda leyrarka zaa'idka oo baabuurtu ay shidanayaan looma baahna dadku marka waa inay ogaadaan ama qofku waa inuu fahamsan yahay meesha aad maraysid iyo marxaladda macnaheedu waxa weeyaan isticmaalka gaadiidka ee ay u baahan tahay marka waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa bulshada isticmaasha gaadiidka nooc kasta ay yihiin inay ilaaliyaan dhowraan qawaaniinta sidoo kale waxaan aad u xoojinaynaa in barnaamijka laysinka dadku waxaa moodaa gaadiidleyda boqolkiiba 80 in ka badan inaanay laysin isticmaalin ama aysan qaadan wixii hadda ka dambeeya wacyigelintan marka ay waqtigeedu dhammaado gaariga laysin la-aan tahay oo la qabto haddee waxaa ku imaanaya ciqaab kala duwan waxaa ku imaanaya ganaax waxaa ku imaanaya xarig inta marka aysa taasi kugu imaan waxaanu kaaga digaynaa ama aanu kaaga wacyigelinaynaa inaad inta ka horeysa laysinkaaga qaadatid oo aad tagtid waaxda laysinka wasaaradda howlaha guud iyo traafikada baraac sidoo kale gaadiidka taarga la-aanta isaguna waa mid aad iyo aad runtii u khatar badan aad baanu asagana uga digaynaa nooc kasta uu yahay shacib iyo dawli cid taarga la-aan loo ogol yahay in ay socoto ma jirto gaari lagu qabto taarga la-aan waa wax aan socon karin adduunka lagama ogola gaari bilaa taarga inuu dhaqaaqo taayirka inuu rogo lagama ogola marka barnaamijka aad ha loo ogsoonaado dadku ha u soo jeesteen nidaamka iyo sharciga wadamarista dadku ha u soo jeesteen sidoo kale darawalka iyo mulkiilaha gaariga darawalka uu wado waa inuu magaciisu ku qoran yahay haddii uusan asagu darawal ka yahay oo uusan gaariga lahaynna mulkiilaha gaariga iska leh waa inuu ku qoran yahay haddii baabuurka aad gadatay oo aad lacagtaada ka bixisay aadan dukumentigiisa ku qornayn waxay caddaynaysaa gaariga inaadan lahayn dembiga aad ku geshidna waxay caddaynaysaa inuu yahay mid ulakas ah ama ulakac ah sidaa laaligeed waa barnaamijka labaad oo aadka u weyn in gaadiidka la kala gadanayo qofku marka uu gaadiidkiisa gadanayo inuu ku qorto magaciisa oo saddexan meesha uu joogo meesha uu ku gatay iyo macnaheedu wax weeyaan ciddii macnaheedu wax weeyaan aan markhaantiga uga ahayd shaqadan waxaa iskale oo loogu tegayaa wasaaradda howlaha guud waa in la ogaadaa gaari dukumentigiisa aadan ku qornayn buuggiisa aadan ku qornayn in aadan waxna ku canshuuran karin aanadna wadan karin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa bulshadu inay aad iyo aad u dhagaysato wacyigelinta sababta ay tahay faa'iido badan baa ugu jirta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaariga buugga fiirinayna gaariga iyo laysinkaaga maxaa dhahay laysimadii baa bilaabanaya ما شغالين قصو انت تكو على برما ولا بريا وعي قلم بقى جيس طيب ما سنتين